السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبنا الصوماليين بل كسو جوجتان إيسا كسو دودا ونسان مالين وناكسل برنامج كلي وحو كو سابسن يحيى لبا قodب oo kala ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gabadhii ahayd gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuulo Axmed Gaballe ayaa timaha isku dhigay oo isjiijiiday labada qof mid ka gardarana insha Allah ta'ala bulshada ayaa miisaami doonta qodobka labaad waxa weeye 97 xildhibaan ayaa warqad soo saaray ay ku eedeynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud eedaasu maxay tahay labadaas qodob ayaan insha Allah ta'ala isdul taagi doonaa idinkumana dheerayn doono 10 daqiiqo haddii u baato insha Allah ta'ala hadda doonaa waxaan marka insha Allah ta'ala ku bilaabayaa qodobka Butuulo Axmed Gaballe iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre labada mas'uul ba way hadleen qof walbana wax ka yar daqiiqo ayaan intus doona insha Allah ta'ala waxaan ku bilaabaynaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre daawasho wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed oo intaan farnay in loo baneeyo wasaaradda waxoogaa isku dhajiyay oo si kale wuxuu fahmay waxaan annaguna aan diidnay booliisku inay gabdho Soomaaliyeed jiijidaan aan diidnay xaruntii weyneyd hooyooyinka la oran jiray waxaan rajaynayaa in ay ku shaqeyso wasaaradda iska leh inay ku shaqeysaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed oo intaan farnay in loo baneeyo wasaaradda waxoogaa isku dhajiyay oo si kale wuxuu fahmay waxaan annaguna aan diidnay booliisku inay gabdho Soomaaliyeed jiijidaan aan diidnay waxaan rajaynayaa sidaan u ixtiraamnay inay ayaguna qarankooda u ixtiraamaan oo ay baneeyaan wasaaraddaas u baneeyaan wasaaradda si ay ugu shaqeyso xafiisyadeeda waayahay waxay ila tahay inaad aragteen duulaanka ra'iisul wasaaruhu waxa uu daaran yahay bal haddana aynu idinku duuno gabadha la yiraahdo Butuulo Axmed Gaballe oo iyaduna difaacday ururka haweenka Soomaaliyeed waxba nooma dhaxayaan ra'iisul wasaare waa isu muuqanaa gurigaagu waa naga sii jeedaa anagu dhinaca kale ka deganaa noo soo lugee ee kaala najiid oo naga saar guriga adigu haddaad dhaylo cunto oo aad AC ku hoos jirto oo baabuur bullet proof lagugu wado anagu banaanka ayaan u taaganahay qaranka Soomaaliyeed badbaadadiisa iyo shaqadiisa waxaan ugu tagnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu xureynayo gobolada dhexe magaalada Dhuusamareeb anagoo saad iyo sahay u sidna ciidanka anoo xor ah oo Soomaali ah oo gabar Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed ah in maanta ra'iisul wasaaraha qaranka nalaga celcelinayo oo uu leeyahay haweenka soo jiiday ana jiiday kaala ila qabtay waayaan dar waayahay waxay ila tahay inaad dareentay iyaduna waxa markaasi hadalkeedu iyo ujeedadu ay tahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku hanjabay si dadban in uu boolis u diri doono oo haweenka halkaas degan ee hoygan iyagu iska leh rabaaxsho lagala daari doono qaarna xabsiga lagu guri doono sababtoo wuxuu waxaan ka xishoonay inaan boolis idin soo dirno gabadhana waxay leedahay diris baad nala tahay adigu intaad soo lugaysid kaaliyo taha lagu dhigo najiib waxa weeye marka waxa la isku haysto waa guriga hooyooyinka oo ku yaala madaxtooyada laftirkeeda gurigan waxa weeye in la muraadeeyaa la rabaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri wasaaradii lahayd ee wasaaradda haweenka ahayd baa degaysa laakiin waxba kama jiraan sababtoo ah wasaaradaha tii ugu muhiimsanayd dhulkeeda iib ah wasaaradii gaashaandhigga ee taqaaneen waxa weeye dhulkeeda mar dhow baa lagu kala baxayaa marka dawlad iibinaysa wasaaradii gaashaandhigga oo markaasi halkaas guriga raadisay u malayn maayo inay gurigan wasaaradii haweenka siinayso waxa weeye marka dhulalkii ayaa inta badan soo gabagaboobay maalin dhaweyd waxaan Facebook ku qoray qabyada kaliya ee xasan sheekh maxamuud dhameystiray waa midda dhulboobka hantida qaranka Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay xasan waxa la fiiyay waxa weeye marka dhulal aad u yar baa haray halkan waxa la doonayaa in haweenka inta lugaha la isugu dhufto laga eriyo la muraadeeyo oo $100 milyan oo dollar hadayba goonaysa $100 horta ma dhamaan u marin adigu malaayiin dollar lagala baxo waxa weeye marka ninkan Xamse ah isagu waa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo isagu hadda waxa weeye wax badan oo boobay iyo wuxuu cunay ma maqal laakiin waa nin adeegsanayo xasan unbaa hawshan wata laakiin ururka haweenka waxa leeyahay niyad jabina ummadda Soomaaliyeed way idin garab taagan tahay wayna og tahay hoygan adinku inaad leedihiin
oo muxuu ahay leydin handadayo garabkiina la taagan yahay habaqina ku dhinta insha allahu tacaala wixiina ka difaacda adinkaaba ragga wax dheer haddaad gurigaas xasan iyo kooxdiisa aad ka celisaan waayahay 97 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare labada aqalba aan ku soo koobo ayaa warqad dheer soo saaray inkastoo aanan ka helin qaabka xildhibaanadani u hadleen maadaama iyagu ay yihiin dad muxuu ahay tallaabo qaadi kara haddana waxaan idin dul maraynaa eedda ay u soo jeediyeen kooxda xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeed bay soo saareen waxay dhaheen ujeeddu cambaarayn go'aanka ganacsade shisheeye loogu xiray bay dhaheen dhoofinta xoolaha soomaaliya waxay dhaheen nolosha bulshada soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay bay dhaheen dhaqashada iyo dheefsiga xoolaha nool waxay saldhig ama lafdhabar u yihiin bay dhaheen xoolahaasi qaabdhismeedka dhaqaalaha dalka inta ay soomaaliya jirtay xooluhu waxay door weyn ku lahaayeen bay dhaheen nolosha dadka soomaaliyeed iyaga oo si weyn uga soo qayb qaatay bay dhaheen xasiloonida quutuldaruuriga habnololeedka iyo dhaqaalaha bulshada haddaba annaga oo ahay dhaheen xildhibaanada magacyadoodu hoos ku xusan yihiin kana tirsan bay dhaheen baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal kana jawaabaynay dhaheen cabashada ka soo yeertay bulshada soomaaliyeed islamarkaana tix raacaynay dhaheen dastuurkii kumeelgaarka ah soo kuwii tirtiray gaar ahaanay dhaheen qodobada 26aad qodobka 26aad ay dhaheen hantida iyo qodobka 27aad ee dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada farqadiisa afraad ay dhaheen qodobka 33aad go'aano maamul oo cadaalad ah qodobka 34aad dhulka iyo hantida iyo deegaanka qodobadaasay soo xigteen waxaanu si adag u cambaaraynaynaa bay dhaheen go'aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu xiray ganacsade shisheeye oo lagu magacaabo abuyaasir dhoofinta xoolaha soomaaliyeed ninkaasi oo ahay dhaheen nin ajnabi ah oo taariikh madow ku leh gudaha soomaaliya ganacsato badan oo soomaaliyeed horay u dhacay deganna dalka jabuuti tani waa markii ugu horreysay ee ay dhacdo bay dhaheen in dhoofka xoolaha soomaaliyeed hal shaqsi loo xiro habdhaqankani iyo maamul xumadani aan laga fiirsan ee sida joogtada ah loogu halkaasi iga dhammaatay waayahay horta xildhibaanadu waa u mahadsan yihiin oo inay dhaca iyo boobka xasan sheekh maxamuud heerka uu gaaray ummadda soomaaliyeed usoo bandhigaan waan uga mahad celinaynaa laakiin xildhibaanada loogama baahna inay sidii annagii u hadlaan annagaa shacabkiiya bulshada soomaaliyeedna xasan waxa uu dhacay iyo waxa uu isdabamariyey annaga ayaa la wadaagna cambaarayn kuma filla 97 xildhibaan weeye warqadda sida ku qoran 97 xildhibaan marka waxaa weeye awood bay leeyihiin impeachment wax la yidhaahday ka diyaari karaan madaxweynaha burcadka ah ee hantidii ummadda soomaaliyeed boobaya marka waxaa weeye luuqadan luuqad ka duwan baan xildhibaanada ka rabnay laakiin waxay la tahay iyaga laftirkooda shaxaadoon ah oo malaha inay ganacsatadaas wax u qabtaan ama ummadda soomaaliyeed dhaca xasan sheekh maxamuud ka badbaadiyeen qorshoodu ma ahane dabajabsi xasanow maxaad nooga ogoshahay waxa aad xiratay weeye ujeedadoodu anigu sida aan u fahmay hase yeeshee warkani waa war dhab ah xasan sheekh maxamuud hadaad maqlayseen horay u maqasheen macnaha in marduufka jaadka uu lacag saartay $4 iyo bar ah maanta neefka arigaa $2 ilaa $4 waa siduu kala xoog badan yahay neefka yar 2 kan weyn 4 lo'da $4 ilaa $6 geela 8 ilaa $10 saas ayaa loo saaray waxaana guud ahaan warqada loo diray dalalka loo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya
dekadaha kismaayo muqdisho boosaaso iyo berbera intaba waxaa la yidhi hebelka abu yaasir hal neef oo uusan ogeyn muxuu ahaytay leedima soo dhoofin karo marka waxaa weeye maanta dadka muqdisho kaliya haday qaylinayeen oo ay lahaayeen muxuu ahaytay waana la dhacay waana la cuno qabatay iyo dhulkeena la boobay maanta miyiga wiilka jooga ee Soomaaliyeed iyo gabadha halkaas ariga ku ilaashanaysa dhibaatadii Xasan Maxamed Calasow way soo gaartay ugu dambeyn muuqaalka inaan ku dheereeyo anigu rabin xildhibaanadan waxaan rabaa inay madaxweynahan impeachment ka diyaariyaan oo isaga labada lugood jibiyaan ugu yaraan kullideed sharciga Soomaaliya sida hadda uu yahay madaxweyne xilka lagama qaadi karo maxkamadda dastuuriga waxaan sii fiirleed iyo howlahaas aan jirin laakiin haddii la impeach gareeyo ugu yaraan waxa weeye madaxweyne cuuriyaan oo tallaabo dambe qaadi karin buu noqon doonaa inta dhiman ee uu boobi lahaa ayaan laga badbaadin karaa marka ha soo caacalna si shacabkina ha u hadlina ninkan musiibada ah ummadda adinkaa dul saaraye tallaabo